haddaan nahay weynaha galbeedka gobolka Sanaag waxaanu go'aan ku gaarnay qodobadan waxaanu xambaaraynaynaa dilkii ka dhacay Berbera kowdii bishii saddexaad 2016 oo loo geystay markii Taliya Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo ahaa dil foolxun xukunkii maxkamadda sare ee militariga ahaa in 8 nin ee dilka geystay ku xukuntay dil kadibna markii aan sameeynay maxkamadaha muddo sanad ah balse uu diiday fulintii madaxweynaha iyo islaamtiisu dhamaan haweenka fadhiya halkan iyo kuwa maqanba dhamaantood aha kuwa ah dadka ku abtirsada ama taageerada uu ahaa xisbiga kulmiye markaanu aragnay in aanu jirin wax cadaalad ah oo ku dhaqmaayo dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Sileeyo sharciyada islaamkana aanu ku dhaqmayn oo ay kaga weyn tahay dimuqraadiyadda iyo halka marwada waxaanu go'aansanay in aanu xisbiga kulmiye gaba ahaantiisa kaga baxno dilkii foosha xumaa ee ka dhacay Berbera taliyihii loo geystay dilka foosha xun ee kale waxaanu sheegaynaa haddaanu nahay haweenaha inta maqan iyo inta joogtaba inaanu ka diga roganay oo aanu ka baxnay xisbiga kulmiye gabi ahaantiiba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha annagoo ah bahweyntii kulmiye ee beesha galbeedka Sanaag inaanaan ku sii jiri doonin xisbiga kulmiye haddaan arrinkaa la fulin go'aan cadna laga gaadhin jawaab degdeg ah aanaan ka helin mudane madaxweyne nin waa laga samraa oo nin baa dila oo maxay ahayd tan wanaagiisa iyo sharaftiisa iyo waxqabadkiisa markay arkeen maxay tahay u qori waayeen asxaabta kulmiyana waxnu leenahay haddaanu nahay bahda haweenka galbeedka gobolka Sanaag ee kulmiye u dhaadan jiray waanu ka baxnay kulmiye halkaanu ku biiri doonana gadaal baanu ka soo sheegay oo waxa loo qabtay yani sababtoo waxaan leeyahay rag la xukumay saddexdan nin ee aan ku qanacsanay kuma qanacsanay saddexdan nin laakiin xaqan eegin hadii markii la xukumay saxiix kaliya noo harsanaa وصحيح الديدي آمنوا ولا سياسيين أياك تليو ديدي الخصوص هو ما آمنوا ولا سبعة لسه وتري مصعب صحيح حاس وحنا لا أنا هاي هدي أساق وقت كيستان madaxweynuhu hadii uu daacad ka yahay qof markuu wax la dilo qofka dila marka maxkamadda geeyo ee la xukumo waa loo dili jiray hadeertona waxa weeye markii maxkamadda aan sugnay ee gobolka maxay tahay la mariyay ee tii labaad la qaaday ee la mariyay madaxweynuhu waa ka dhaqarsaday haddaan nahay xisbiga kulmiyana waxaan nahay asaasayaashii ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye markii ugu horeysay maxay tahay dhidibada u aasay haddaan u aasnay waxa weeye xisbiga kalsooni aan lahayn waanu kala noqonay waxaanu haynaa ma jirto xisbiga kulmiyana waanu ka baxnay waxa la yiraahdaa rag cadaalad waay sida ay u shakaleeyaan dawladdu miyay ilowday aayadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala tadabada samata ugu sareysa ka soo rogay walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum ta'qilun mise dawladdu waxay doonaysaa inay dadka isku disho oo dalka maxaan ku leedahay nabadiisu ay carqaladooda sababtoo ah ninka ka maqan gobolka Sanaag ma aha nin laga samreeyo